waxaan mar kale ku soo dhaweynayaa dalka Ethiopia iyo gaar ahaan deegaanka Soomaalida madaxda Soomaaliyeed ee ka timid geeska Afrika meelihiisa kala duwan iyadoo maanta ay noo tahay maalin farxadeed iyo maalin aad maamuus fara badan aan u dareemayno maadaama aan isu aragno inaan nahay xudunta shacabka Soomaaliyeed aad iyo farxad noo gelinaysa dhamaantii soo dhawaada ayaan idin leenahay dalka Ethiopia isbedelku intuu ka dhacay kadib mashruucan hadda maanta halkaan u joognaa wuxuu marxaati ka yahay isbedelkaasi inuu si ballaaran u soo gaaray deegaanka Soomaalida uu yahay meelaha sida ugu ballaaran uga faa'iideystay isbedelkii uu hogaaminayay Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed intii xilka uu yimid waxa deegaanka Soomaalida uu ka helay amni hore aan u jirin wuxuu ka helay xorriyad ballaaran wuxuu ka helay madax bannaani ismaamul oo hore aan u jirin iyo mashaariic aad u fara badan oo halkan aan lagu soo koobi karin mid ka midana uu yahay kan maanta hadda aan xariga ka jarayno waxa arinta uga mahadnaqaynaa Ra'iisul Wasaaraha iyo dawladda uu hogaamiyo oo aad iyo aad runtii isaga xil saaray in wax weyn laga bedelo nolosha shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka iyadoo taasi ay tahay maanta tu muuqata oo aan filayo mas'uuliyiinta yimidna inay dhowda ku arkeen isbedelka ka muuqda aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay fikirka dhismaha dabagalka qaybta ka ahayd ugu horeeyay Ra'iisul Wasaaruhu oo si dhow mashruucan isagu ula socday korjoogto ugu hayay mar walbana dadaal dheeraad u sameeyay in muddo gaaban lagu soo dhameystiro mashruucani mashruuc balaayiin ay ku baxday weeye waa mashruuc astaan u ah himilooyinka iyo nabadda deegaanka taala waayo dalxiis lagama hadli kareynin sanadaha ka hor maanta waxa laga hadlayaa dalxiis iyo dalxiisayaal lagama hadli kareynin arintaas Ra'iisul Wasaare aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa kale oo mahadnaqayaa Dr. Abraham Balay oo wasiirka dooxooyinka laakiin mashruucana project manager ka ahaa oo si dhow maaragtay isaguna hawshan ula shaqeynay oo oran karo waqti badan oo kamid waqtigiisa halkan ayuuba maaragtay nala joogay iyo dhammaan mas'uuliyiinta heer deegaan madaxweynaha ku-xigeenka ugu horeeyo ee sida ballaaran maaragtay qaybta ugu ahaa in maanta halkan la soo gaarsiiyo mashruucan oo wax weyn ka bedeli doona nolosha shacabkanaga iyo sawirka deegaankanaga intaba dhamaantiin aad baa horumarka Ethiopia ma ahayna Afrika oo dhan yani fikirka uu ka qabo sida uu isku daba dhigay hadalkiisa waxa nooga muuqata qof Afrikana oo Afrika damacsan inuu ku dadaalo inay Ethiopia ay doorkeedii ka soo baxayso kolka la eego Quraanka la eego in uu Quraan wadanka dhexdiisa ka yimiday oo kaliya inuu gaarsiiyo jaarna in uu la wadaagaan ayuu ku sheegay hadalkiisa aad baan ugu khushuucnay aad baan tusayna in aan wax wada qabsan karno inaan horumar dhalin karno maxaa la yiraahdaa asaaskii horumarku waxa uu yahay shidaalka ama korontada ama biyaha waxaasoo dhani waa wax ku socda in ay horumarka Afrika ka qayb galno annaguna aad baan u hambalyeynaa salaan kashkiya laabana waan soo tabinaynaa shacbiga Ethiopia dhamaantiis in uu hawl galo in uu ku faano taris ma garanaysaa ay sida u furfuran sida Abiy u haya kalgacal xoog leh u haya wadanka iyo jaarka intaba aad baan ugu mahadnaqaynaa waan dasalaatu intii ku habboonayd waa la yiri Ra'iisul Wasaaraha hadalkiisa ayaa wax walba ku soo koobnaayeen ay ku dhamaayeen madaxweyne Ismaaciilna uu raaciyay waxa kaliya aan leeyahay waxay tahay waan hambalyeynaa Ra'iisul Wasaaraha iyo dawladda iyo dadka reer Ethiopia ba waxaan leeyahay waxa aad sameeynaysan haddii ay tahay wax soo saarka iyo haddii ay tahay la macaamilka deriska iyo gaarsiinta deriska horumarka adinku aad gaarteen waxaan leeyahay waa wax lagu daysado oo mudan in tallaabooyinkaas oo kale la wada qaado
maadaama adduunyada qarniga ilaa taad la xaqiijiyay horumarka aasaaskiisa marka laga yimaado nabadda iyo mujtamaca wada shaqayntiisa waxa weeye waa kaabayaasha dhaqaalaha ama infrastructure-ka oo ay ugu horeyso energy-ga wax walba Ethiopia caqliga ay sameysay iyo hoggaanka ra'iisul wasaaraha wax walba meesha sida ugu habboon looga faa'iideysan karo in looga faa'iideysto sida maxaan ku raad biyihiina in maxaan ku raadaay dam iyo koronto laga soo saaro dabayshii meeshii ay lahaydna laga soo saaro ayadana koronto meeshii kale oo ama thermal ama wax kale sidoo kale laga soo saaro lagu badbaadiyo environment-ga in oo fasahaadin oo fasaqmin waa caqli iyo maxaan ku raad creativity aad iyo aad u weyn waaye oo u baahan in lagu daysado lana muxuu ahaay daba kaco tubta mar kale ra'iisul wasaaraha waa u hambalyeynaa xukuumadda iyo shacabka reer Ethiopia guud ahaan waa u hambalyeynaa dadaalkooda regionka in la horumariyo ahna waa ku mahadsan yihiin waana ku ammaan yihiin insha Allah Soomaaliyana muxuu ahaay waxay ka mid noqon doontaa dalalka macaamilka la leh ama ka faa'iiday meeshaas inaan kala qabsano oo aan ka faa'iideysano ayaa sida saxda ay tahay waana sameeynaa diyaaliira mar kale habalyo aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu alaykum waraxmatullaahi ወበረካቱ ሸበሌ እንዳያችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ክልል ልማት ማምጣት እንደሚቻል እንደዚህ ያለውን ሰፊ ስራ ስንሰራ የቤቱ ግንባታ የከባቢውን ባህል የከባቢውን የቤት አሰራር የተከተለ ዝም ብሎ ሌጣ ፕሮጀክት ደግሞ ሳይሆን በጣም በስፋት እንደዚህ ያሉ ግሪን ስፔሶች የተፈጠሩበት በሺ የሚቆጠሩ ዛፎች ፍሩቶች የተተከሉበት አብርሃም በላይ በወንጪ ያሳየውን ብቃት በሸበሌ የደገመበት አብርሃም በላይ ከትግራይ ተወልዶ ኦሮሚያን ሶማሌን እየዞረ ለማልማት እድል ያገኘበት በኦሮሚያም በሶማሌም ማንም ሰው ልማት ሰላም ፍቅር ይዞ እስከመጣ ድረስ እንደ ልጅ የመቀበል ባህል መኖሩን በድጋሚ ያረጋገጥንበት ሶማሌዎች የጅቡቲ ወንድሞቻቸውን የኬንያ ወንድሞቻቸውን የሶማሊያ ወንድሞቻቸውን ብቻ ሳይሆን የሰላም ባንዲራ የፍቅር ባንዲራ የልማት ባንዲራ ከያዘ ከየትኛውም ጫፍ ዘር ሳይለዩ እምነት ሳይለዩ መቀበል እንደሚችሉ አብርሃም በላይ ማሳያ ነው።